Rabadaan wanaagsan dhammaan asxaabtayda ku xidhan channel-kayga waa Dr. Darajo. Alla waxaan ka baryayaa in bisha Rabadaan ee barakaysan cimri dharar iyo caafimaad qab iyo cibaado suuban uu inoogu dhammeeyo maalmaha kooban ee ka hadhay. Maadaama aan ku guda jirno bishii Rabadaan maalmihii ugu dambeeyey, waxaynu maanta halkan kaga hadli doonaa caafimaad ahaan maxaa jidhka ku dhaca maalmaha ugu dambeeya ee soonka. Sidoo kale waxaynu baraarujin doonaa maalmaha uu soonku dhammaado caafimaad ahaan maxaa qofkii la gudboon muddada bisha soo soomanaa. Haddaba haddaynu ka horreyno maxaa jidhka ku dhaca maalmaha ugu dambeeya ee soonka. Haddaba jidhku wuxuu bilaabaa gubista dufanka marka qofku soomo saacado badan maalin kasta muddo bil ku dhow. Jidhku waxa uu maraa dhowr marxaladood oo tamar helid ah. Marka hore jidhku waxa uu isticmaalaa sonkorta dhiigga ku jirta, kadibna waxa uu isticmaalaa kaydka sonkorta ee ku jirta beerka iyo murqaha. Kaydkaasi oo loo yaqaano glycogen, laakiin kaydka glycogen-ka ahi waa uu xadidan yahay. Marka soonku sii socdo maalmo badan, gaar ahaan maalmaha ugu dambeeya ee bisha, kaydka glycogen-ku wuu yaraadaa. Markaa jidhku waxa uu u wareegaa habka tamar ku helo. Habkaasi waa gubista dufanka. Jidhku waxa uu kaydsadaa, beerkuna waxa uu jejebiyaa dufankaas, waxaana uu ka sameeyaa tamar ay isticmaasho maalinta unugyada jidhka. Tani waa sababta laba arrimood: miisaanka qofku wax yar hoos ayuu ugu dhacaa, dufanka jidhku waa si tartiib leh u gubta. Sababta awgeed, dadka qaar waxay dareemaan in calooshii ama baruurtii jidhku ay hoos u dhacday. Inta lagu guda jiro bisha Rabadaan, maskaxdu waxay isticmaashaa tamar kale. Maskaxdu caadi ahaan waxay jeceshahay guluukoosta, taasi oo ah sonkorta dhiigga ku jirta. Laakiin marka soonku dheeraado oo sonkortu yaraato, jidhku waxa uu sameeyaa walxo kale oo tamar ah oo loo yaqaano ketones. Ketonesku waxa sameeya beerka. Marka uu jejebiyo dufanka, ketonesku waxa ay noqdaan tamar kale oo maskaxda isticmaasha. Dad badan ayaa dareema in maskaxdu noqoto mid foojigan, fikir ahaan noqoto mid caadi ah, mararka qaar diiradda shaqada ay korodho. Sababtaasi ayaa ka dhigta in soonku mararka qaar lagu arko kor u kaca foojignaanta maskaxda. Jidhku waxa uu sameeyaa nadiifinta unugyada. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu xiisaha badan ee soonku waa habka loo yaqaano autophagy. Autophagy macnaheedu waa in jidhku bilaabo nadiifin iyo dib u habayn unugyada. Marka qofku cunto yar qaato ama soomo, unugyada duugoobay ama dhaawacmay waa la burburiyaa, qaybahooda ayaa dib loo isticmaalaa, unugyo cusub oo caafimaad qaba ayaa la sameeyaa. Habkani wuxuu ka caawiyaa jidhka inuu isticmaalo ama uu nadiifiyo waxyaabaha aan faa'iidada lahayn, inuu dayactiro unugyada. Taasi waa sababta cilmi baadhisyo badani u sheegeen in soonku ka qayb qaadan karo hagaajinta caafimaadka unugyada jidhka. Gaajada oo yaraata. Dad badan waxay u malaynayaan in marka soonku sii socdo gaajadu sii kordhayso, laakiin dhab ahaantii dad badani waxay ogaadeen in maalmo badan oo soonku gaajadu yaraato. Sababta arrinku waa hormoonnada gaajada oo la yidhaahdo glycogen. Hormoonkan ayaa maskaxda u dira fariinta gaajada. Marka qofku muddo ku jiro jadwalka soon joogto ah, jidhku waxa uu la qabsadaa jadwalka. Hormoonka glycogen ayaa yaraada. Taas waa marka gaajo yar uu dareemo. Mararka qaar waxa uu dareemaa deganaan iyo xasillooni. Haddaba intaa haddaynu kaga soo gudubno maxaa la gudboon qofkii markuu bil soo soomanaado caafimaad ahaan. Haddaba markuu soonku dhammaado, jidhku waxa uu u baahan yahay inuu si tartiib ah loo caawiyo caafimaad ahaan. Ha cunin cunto badan hal mar. Qalad badan oo dhaca waa in la cuno cunto aad u badan maalinta ciidda, laakiin caafimaad ahaan waxa fiican in la bilaabo cunto fudud. Biyo badan cab. Soonka kadib, jidhku waxa uu u baahan yahay biyo badan. Biyuhu waxay caawiyaan dheefshiidka. Biyuhu waxay caawiyaan kelyaha. Si tartiib ah ugu laabo jadwalkaaga cuntada. Jidhka 30 maalmood ayuu la qabsaday waqtiyo gaar ah oo cuntadu. Sidaas darteed, si tartiib ah ugu laabo 3 cunto maalintii.
iska ilaali sonkorta dufanka badan. Maalmaha ciidda badanaa waxaa la cunaa macmacaanka badan, cuntada dufanka leh, laakiin haddii aad la badsado waxay keeni karaan miisaanka kordha iyo calool xanuun. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ka ii saarto si kanankaygan meel dheer uu gaadho.